madaxda maamul goboleedka Puntland ayaa iyagu isku khilaafsan ka qaybgalka shirka ka furmaya magaalada Kismaayo iyadoo warmurtiyeed maalinkii shalaha ka soo baxay golaha wasiirada Puntland lagu sheegay in Puntland ay diyaar u tahay ka qaybgalka shirka ka furmaya maalinka Axadda ah magaalada Kismaayo haddaba warbixin arrinka ku aadan waxa Garowe inooga soo diray wariyahayaga Cumar Saciid shirka golaha wasiirada Puntland ee ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxa shir gudoominayay madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas waxaana looga hadlay arrimaha ammaanka mashaariicda ka socota Puntland shirka ka dhacaya Jubbaland iyo arrimo kale dawladda Puntland waxay sheegtay in ka qayb galaysa shirka ka dhacaya Jubbaland gaar ahaan caasimadda ku meel gaarka ee Kismaayo waxayna sheegtay Puntland in shirkaas u aragta shir arrimaha federalismka lagu xoojinayo danna ugu jirta Puntland waxay ku soo aadamaya hadalka ka soo baxay golaha wasiirada Puntland madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ee safar dalka dibadiisa ugu baxay asbuucan mar la hadlay warbaahinta ayaa wixii sheegay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey in aysan habboonayn shirka lagu qabanayo Kismaayo isla markaasna dalka ka jirta dawlad dhexe laguna ixtiraamo shaqadeeda Cumar Saciid Diiriya wararka telefishinka caalamiga RTN Garowe.